yaabaan maqnaa intaan maqnaa shubanku mar walba aad buu uga sii darayay dhaliisha dadka waanu ka raali gelinaynaa dhaliisha waa inaanu qaadanaa wixii dhaliil jira waa inaanu aqbalnaa haddaanu nahay hoggaanka wasaaradda dhaliishu waa hoggaanka wasaaradda oo aan ka mid ahay dhaliisha wax waan ka qabaa oo ka mid baan ahay dadka la dhaliilayo waxaanan leeyahay apology iyo raali gelin anigoo afkii wasaaradda ku hadlaya iyaan ka bixinaya dhaliisha halkay wax marayaan laakiin waxaan sheegayaa haddii aad mas'uul tahay oo ay dhaliili timaado sida ugu quruxda badan waxa weeyaan dhaliishii inaad qaadato marka aad qaadatay aad aqbasho iyuunbaad sixi kartaa aad wax ka qaban kartaa marka dhaliisha waanu qaadanay anigoo ku hadlaya afkii wasaaradda waanu qaadanay anna ka mid baan ahay kuwa la dhaliilayo waanan raali gelinayaa shacbiga reer Somaliland muddo dheer oo dhowr iyo 10 bilood ilaa bishii 8aad aan idhaahdo sanadkii hore uu ka bilaabmay Wajaale way la soo dagaalamaysay xanuunkan maalinba meel buu ka curanayay oo ka dhalanayay meeshuu ka dhashana waanu ugu tageynay waanu ka guuleysanaynay alxamdulillah rabbil caalamiin meeshuu galaba waa ka saaraynay dhowr iyo 10 goobood ka horeeyay burco ayaanu cudurkan ku dagaalanno ilaahay waa naga guuleeyay burco naga soo galay ilaahay idinkii burcona waa ka saaraynaa insha Allah